إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadarooyinkii aan u hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay maalmaha la sunneeyo in la soomo iyo maalmaha in la soomo la reebay gaar ahaan waxaan ku jirnaa maalmaha la sunneeyo in la soomo maalmo badan baan hore u soo sheegnay maalmaha in la soomo la sunneeyo waxaa ka mid ah siyaamu shahrillahi almuharram bisha muharram in la soomo culimadu waxay yiraahdeen yustahabu siyaamu shahri muharram bisha muharram waa bisha Soomaaliya u yaqaanaan zakada weeyaane ee ah bisha koowaad ee hijriga in la soomo ayaa sunna beereen bishaas iyada ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri afdalu siyaami ba'da ramadaana shahrullahi almuharram wa afdalu salati ba'da almaktubati salatu al-layl soon waxa ugu fadl badan ramadaanka kadib in la soomo shahrullahi almuharram bishii alla ee xurmada laheeday waa bishii Soomaaliya u yaqaan zakada wa afdalu salati ba'da al-maktubati salatu al-layl salaadna waxa ugu fadl badan markii faradka laga reebo salaada la duka salatu al-layl xadiiskana waa xadiis saxiix waxa laga qaadanayaa in ay sunna tahay bisha muharram in la soomo marka bisha muharram in la soomo waliba waxay leedahay Ashura iyo Taasuuca in la soomo oo maalinta ay bisha muharram 10 tahay ama ay yani maragtay hadii xitaa maama korreey laga sooman idii way banaan tahay laakiin in la soomo yawm Ashura ayaa si gaar ahaan u sii fiican marka jumhuurul ulama waxay qabaan in Ashura in la soomo ama bisha muharram maalinta ay 10 tahay in la soomaaye waa mustahab bay dhaheen oo macnaha soonkeedan ajir badan buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri hada yawm Ashura ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر كان ومانتي بيش محرم أي طبعا هذي من الذي كفر ديلين إن صونتان وواجب دي كماهن أنا وان صومنا هاي قفكي دونا هالصومة قفكي دونا هاسك أفربو نبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح البخاري مسلم يا صاري مركا إن لا صومة بيش محرم واللي بقارهن عاشوراء إن لا صومة آد بي مهم أوتهاي سوى كلا وحا وناكسن إن لغو دره بيش محرم سقال كيدا رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع سنة كالصوص عده هدي آن نولادو بيش محرم مركا ايتهي سقال أيان سوم يبو نبي عليه الصلاة والسلام سنة كده من رسولك مبقارن وواقيريودي صلوات الله والسلام عليه وهدو نبي سو قار لها سنة كاسي إنو الصوم أيو ديار وها marka bisha muharram koodeed ila 10 in la soomo way iska banaantahay wax mushkilo ay leedahay malahan qofkii macnaha doonayo in yaani maaragtay ka faa'iideysa fadhiga faraha badan maalmaha in la soomo la sunnay walaal waxa kale oo kamid ah yawmul ithnain wal khamis maalinta isniinta iyo maalinta khamiista isbuuc kasta oo yaani maaragtay in la soomo ay kamid tahay inkastoo culimadu isku khilaafeen oo ay qolo yiraahdeen in la soomaayo waaba la ka hada maalmahaas oo isniinta iyo khamiista kaliya lagu aadiyo culimada kale ay yiraahdeen waa mustahab in la soomo oo maalmahaas lagu aadiyo isniinta iyo khamiista soon lagu aadiyo waana si ay qaban jumhuurul ulama waana mid ka raajixa weeyaan maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isniinta iyo khamiista ayuu soomi jiray wuxuuna dhihi jiray daanika yawmaani tu'radu fiihima al-a'maal labadaas maalmood waa laba maalmood acmaasha alla loo bandhigay subhanahu wa ta'ala fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana saa'iman waxaan jeclay amalkii alla in loo bandhiga aniga oo sooman ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam ahmed iyo qeyrkii uu soo saaray oo sanadkiisan xasan u yahay weeyaan marka in la soomo maalinta khamiista iyo isniinta isbuuciba qofkii ay u suuro gasho sidaas ayaa macnaha sunnadu ay tahay maalmaha in la soomo ay sunnada waxa kale oo kamid walaalayaal in laga soomo bil kastaaye 3 maalmood bil kasta 3 maalmood in laga soomo oo marka la leeyahay bil kasta 3 maalmood in laga soomo laba qaab baa loo kala qaadahaya qaab waxa weeyaan bil kasta 3 maalmood in laga soomo iyadoo aan maalmo gaar aan lagu cayinin oo la dhihinin koodeeda iyo labadeeda iyo saddexdeeda 10keeda ama 20keeda ama 25 iyadoo aan dhihinin bil kasta in laga soomo 3 maalmood oo kamid ah arintaasi culimadu isku khilaafsana
bil kastaay in saddex maalmood laga sooma in ay bannaan tahay bilow bisha laga sooma dhexda laga sooma ama aakhirka laga soomo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri asoo la hadlaya Abdullah ibn Amr al-Aas ay wuxuu yiri sum min kulli shahrin 3 ayaamin bil kastaay saddex maalmood ka soon fadalika sawmu dahri kulli waxay lamid tahay taasi sanadkoo dhan adiga oo soomay ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa xadiis Bukhari Muslim ay soo saareen mas'ala qaybteeda kale waxa weeyaan saddex maalmood oo laga soomay bil kastaay in ay noqdaan maalmaha loo yaqaan ayaamul biidi 13ka 14ka 15ka bil kasta ee dhalato 13keeda 14keeda 15keeda in laga soomo waa ayaamaha loo yaqaan ayaamul biidi inkastoo xukunka maalmahaas la soomay culimadu isku khilaafeen oo qolo ay yiraahdeen in maalmahaasi si gaar ah loo soomo oo la isku aadiyo oo qofku yiraahdo ajir gaar baan ka helaya uu yiraahdo soomay waa karaahi bay yiraahdeen sida madhab Maalik uu qabo culimadu waxay yiraahdeen waa la soomaa maalmahaas in xitaa si gaar loola qasdo waa sida ay qabaan Xanafiyada iyo Shaafiicida iyo Xanaabila ay qabaan weeyaan midka dabana raajaco waxa weeyaan in la soomo ayaa macnaha sunna ah ayaamul biid maalmaha loo yaqaano 13ka 14ka iyo 15ka bil kasta oo dhalato maalmaha in la soomo la sunneeyo waxa kamid ah maalin in qofka uu soomo maalin uu furo maalin in qofku soomo maalin uu iska furo idan way u banaan tahay arimahaas waa mustahab oo waxa weeyaan hadii qofku uu awoodo inuu iska soomo way u banaan tahay maalin yani maragtay uu soomo maalin uu furo waa hadii uu karahayo weeyaan maadaama aan gudu jirna qaybtii aan hadlaynay maalmaha in la soomo ay sunnada tahay Shacbaan soonkiisa muxuu noqon hayaa mas'aladan soonka Shacbaan ku saabsan laba qaab ama laba jihad aan uga hadlaynaa jihada koowaad waxa weeyaan bisha Shacbaan in la soomaayo xukunkeeda muxuu yahay culimada arinta oo isku khilaafeen qolo waxay yiraahdeen waa mustahab bisha Shacbaan in la soomo waana sida ay qabaan Xanafiyada Maalikiyada Shaafiicida iyo jamaaca Xanaabilada kamid ah Xanaabilada inta ugu badan waxay yiraahdeen sunna ma ahan in la soomo bisha Shacbaan ahadiisa ku timid in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo soomay bisha Shacbaan ila Ramadaanka laga gaarana waxay ku ximbaareen marmar ayuu nabiga arintaas sameeyay ee ma daa'imi jirin bay yiraahdeen marka waxa sunna ah in la soomo bisha Shacbaan maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sameeyay hasaate bisha Shacbaan marka ay 15 ay tahay ama kala bar ay tahay soonka la soomaya muxuu noqonayaa waa noo imaadaan insha Allah taala culimadu waxay ka hadlayeen yiraahdaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu soonka u badiyay bisha Shacbaan aqwal banu culimadu ay arintaas ka qabaan qolku uu saxiixsan wuxuu noqonayaa in ay tahay bisha Shacbaan shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa bil a'masha Allah subhanahu wa ta'ala loo koriyeelayo a'masha ay dadka ay sameeyaan loo koriyeelayo wa bil dadka inta badan ay iloobahayaan sida rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam sida Usaama ibn Zayd ta'ala anhu waradahu markuu rasuulka la hadlay uu yiri lam araka tasum min shahrin min ash-shuhuri ma tasum min Sha'baan maxay tahay rasuulkii Allah bisha Sha'baan saad u soomaysa bilaha kale uma soontide rasuulku wuxuu yiri daaka shahrun yaghfulu anhu an-nas bayna Rajab wa Ramadan taasi waa bil dadku inta badan ay iloobayaan una dhaxaysa bisha Rajab iyo bisha Ramadan marka waa bil a'maasha loo koriyeelay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan jeclahay buuri amalkii in la koriyeelo aniga oo soomay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam wa xadiis sanadkiisa xasan yahay Imam Ahmad iyo qeyrka ayaa soo saaray Imam al-Albanina sanadkiisa buu xasan kaga dhigay kitaabka loo yaqaan Irwaa'ul Ghaliilka bisha Shacbaan in la soomo dabcan maalmaha Isniinta iyo Khamiis waa laga soomi karaa sidoo kale Imam Bidku waa la soomi karaa 13ka 14ka iyo 15ka bisha Shacbaan idoo waa laga soomi karaa markii la fiiriyo bisha Shacbaan soonkeedo waxa raajix noqonaya bisha Shacbaan in la soomo oo yaani maragtay maalmihii Isniinta iyo Khamiis oo kala iyo ayaamul biidka laga soomo xitaa hadii si caadi loo soomo idana yaani wax mushkil ah leedahay ma jirto inta waxaan u gudbaynaa maalmaha in la soomo ay sunnada tahay qofka soo muslim waxa la gudboon inuu maalmahaasi la si fiican ugu faa'iideyso soonkana uu ku dadaalo waxaan u gudbaynaa qaybtii kale ee ku saabsaneeday maalmaha in la soomo sharci ahaan mamnuuc ah maalmo waxa jirta marka in la soomo ay mamnuuc tahay waxa kamid ah waxa loo yaqaan soomu dahri qofka inuu waliga iska soomo oo mar uu soonki dayninba muxuu noqonayaa marka xugun ku saabsan in qofka mar walba iska soomo ama sanadkan iska soomo culimadu isku khilaafeen qolo waxay yiraahdeen qofka inuu sanadko dhan soomaayo lama ka hada bay yiraahdeen hadii uu afuraya maalmaha in la soomo la kaado sida
maalmaha ciida oo kala iyo ayaamaha loo yaqaan ayaamu tashriiq waana si ay qaban jumhuurul ulama oo waxay leeyihiin jumhuurul ulama qofka inuu weligiis iska soonaado u banaan tahay kaliya waxa la fiirinayaa inuu afuro maalmaha in la soomo ay mamnuuc ahayd sida maalmaha ciida iyo ayaamu tashriiq culimo kale waxay yiraahdeen in sanadkoodna la soomo waa karaahiyo haba dhacdo qofka inuu afuro maalmaha ciida iyo ayaamu tashriiq waana qowl ay qabaan salafka qaar kamid ah waana riwaayad Imam Ahmed laga wariyay iyo jamaaca Xanafiyada kamid ah Sheikhul Islaam Tiimina saa ayuu doortay qaar Shaafiicida kamid ahna saa ay doorteen culimo kale waxay yiraahdeen waxaba xaraan ah sanadkoodna qofka inuu soomo bal maba banaanay bay yiraahdeen nisu dahr wax ka badan qofka inuu soomo xitaa inuu 6 bilood qofka uu soonaadayo waa mamnuuc bay yiraahdeen macna lama ogola bay yiraahdeen qolkan waxa laga sheegay al-Imam Ibn Hazm mas'ala marka waxa raajixa in la yiraahdo sanadkoo dhan in la soomayo waa karaahiyo maxay yeelay sharciga ma uusan u yeelin in sanadkoo dhan la soomo ajir u gaar ah waxa la doonayaa marka ina soonka ku dadaasho laakiin aadan xadki aad dhaafin cibaadadu waxa rabaa inaad ugu dayato nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam nabigana sanadkoo dhan ma soomeenin marka waxa la rabaa in yaani maragtay la soomo maalmaha la sunneeyay ayaa aad u fara badan in marka sanadkoo dhan la soomaayo wax faa'iido badan kuma jirto qofkan dhibaatay u keeni kartaa hadhow mas'ala kale aan gudbayna oo ah ifraadu yawm al-jum'ati bis-siyam waxaan ila hadda soonka waa sunna maalinta jumcada si gaar ah ma la soomi karaa jumca kaliya oo jumca kaliya in qofka uu soomayo ma banaan tahay mas'ala laba xaalad baan ka fiirinayna xaaladda koowaad waxa weeyaan qofka maalinta jumcada soomiyay haduusan waafaqin caado oo hore u lahaan jiray oo hore dhaqan uma lahaan jiray inuu soomo maalmo dhaaf inuu markaasi maalinta jumcaha kaliya uu soomayo arintaasi in sharci tahay culimo isu khilaafeen qolo waxay yiraahdeen maalinta jumcaha kaliya in la soomayo karaahiye ma ahan bal waaba sunnay dhaheen waa sida madhab Maalik uu qabo culimo kale waxay yiraahdeen waa karaahiye maalinta jumcaha in yaani mareetay loola qasda si gaar in loo soomo illa maalinta ka horeysa oo khamiis in la soomo ama maalinta ka dambayso sabtiga in la soomo mooyaane waana si ay qabaan jumhuurul ulama maxay rasuulka alayhi salatu wasallam wuxuu yiri la yasuumanna ahadukum yawm al-jum'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu qofkiin maalinta jumcaha yuu soomin illa maalin ka horeysa ama ka dambaysi inuu soomo mooyaane xadiiskana waa xadiis saxiix oo Bukhari Muslim ayaa soo saaray culimo kale waxay yiraahdeen maalinta jumcada in soonka lagu gaarayo waa xaraan illa in maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa oo soomo mooyaane hadalkii hore uu raacsan yahay oo hadda aan soo sheegnay marka sida raajix waxa weeyaan in la yiraahdo maalinta jumcada in si gaar ah loo soomo ma banaano si gaar ah ina u soomo qof aan hore soon u lahaan jirin oo aan ahayn qof hore u soo soomi jiray maalin dhaaf in maalinta jumcada si gaar u soomaayo arintaasi ma banaano mas'ala qaybta labaad waxa weeyaan hadii ay waafaqdo maalintii jumcada soon oo qofka caado u aha inuu soomo ama soon sidiisaba mustahab aha in la soomo sida maalintii jumcada waxa ku soo aaday yawm ashura ama yawm arafa ama ahayn wuxuu qofka dhaqan u lahaan jiray maalin in loo soomo maalin oo afuro ama dhowr maalmood inuu soomo dhowr maalmood oo afuro marka haduu maalmo afuriyay maalmana uu soomayay maalinta uu soomayay ku soo aaday maalintii jumcada ama soon uu ku nadray oo jiro oo jumcada ku soo aaday ama soon qado oo Ramadaan hore ugu tagay lagu lahaa oo jiraaye oo maalinta jumcada uu soomaayo qofka asaga ah soonkiisa muxuu noqonayaa mas'alaas culimo isku khilaafeen qolo waxay yiraahdeen inuu maalintaas soomo ma banaana illa maalinta ka horeyso ama maalinta ka dambayso in la soomo mooyaane culimo qaarna waxay yiraahdeen maalinta jumcada haday waafaqdo soon hore oo dhaqan u lahaan jiray sida yawm arafa oo kala ama soon uu ku nadray oo maalin jumcada ku soo aaday qofka asaga ah waxa weeyaan inuu soomaayo way u banaan tahay waana si ay qabaan jumhuurul ulama sida mas'ala raajixan waxa weeyaan sida jumhuurul ulama ay qabaan oo ah in hadii ku soo aado maalinta jumcada soon oo hore u lahaan jiray ama caado hore u lahaan jiray inuu soomayo way u banaan tahay walow maalinta jumcaha si gaar ah u soomo arintana karaahiye ma ahan mas'ala kale oo taas raacsan waxa weeyaan ifraadu yawm as-sabt bi-sawmin tadawwu'in maalin sabti ah ma lagu gaariyeeli karaa soon tadawwuc oo sunna ah arinta culimo isu khilaafeen qolo waxay yiraahdeen waxa karaahiye ah maalinta sabtiga soon sunna in lagu gaar yeelo illa in qofka waafaqa soon hore u soo soomi jiray mooyaane ama maalinta ka horeysa oo soomo ama maalinta ka dambaysa oo soomo in ama soon farad oo soomayo waa gooni ama soon nadar ah ama kafaara oo soomayo ka asiga waa gooni ama in maalinta sabtiga si gaar ah u soomayo arintaasi waa karaahiye
ayay yiraahdeen culimo qaar kamid ah maxay rasuulka kaleey salaam wuxuu yiri la tasuumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaykum maalin sabtiga soomina illa soonkii ku farad yeelay mooyaane fa in lam yajid ahadukum illa 'uuda 'inabin aw liha shajaratin falyamdagha hadii ay dhacdo qofkii inuu wax cuno waayo illa geed yaani maaragtay caleentiisa ama geedka cinabka ah laantiisa ama maaragtay geedka macna maqaarkiisa ama qobkiisa wax kale haduu waayo kuwa mooyaane kuwa xataa ha calaanjibo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiska asagana waa xadiis saxiix ah weeyaan Imam Ahmad iyo Tirmidhi Abi Daawud iyo qeyrkood ayaa soo saaray qowl labada mas'ala ku jiro yawm sabti waxa weeyaan wuxuu leeyahay la yusaamu mutlaqan illa as-sawm al-waajib soonka waajib mooyaane soonka lama la soomayo soonka la soomaya in waajib yahay mooyaane maalinta sabti si gaar ah ma la soomi karo buu yiri qowl kale wuxuu yiri in maalintaas soon sunna mutlaq la iska soomaayo yaani maragtay waa iska banaan tahay iyadoo aan karaahiye jirin walow ayba dhicimo qofku maalin ka horeysi ama maalin ka dambeys inuu soomaba waana si ay qabaan aktharul ulama masalanka waxa raajaxa madhabka qaba ee dhahaya waxa la ka hada maalinta sabtiga si gaar ah soon sunna in lagu gaar yeelo haduusan qofka hore uu caado lahayn jirin aysan ahayn laakiin mas'aladan ogaana muhiim ah maalinta jumcadu niri lagu magaar yeelayo soon iyo maalinta sabtiga aan niri soon ma lagu gaar yeelayo hadii ay ku soo aado maalintii Arafo maalin sabti ay ku soo aado ama maalin jumca ay ku soo aado wala soomi kara arintaasi bila karaahiyo weeyaan sababtoo ah xadiiska nabiga kaleey salaam ee baraarujinaya in maalinta Arafo la sooma ama in la soomo maxaan ku yiraahdaa Ashura ko la sooma ama maalmahaas fadhiga baa in la soomo oo nabiga u baraarujiyay dabcan ma uusan nabiga cadeeyno ma dhihin hadii ay maalin sabti ku soo aado ama maalin jumca la soomi karo ma dhihin waxa ku baraarujinayaa dadka markii ay ku soo aado yawm Arafo oo kala maalin sabti ama jumca si gaar ay ku soo aado dhahaya ma la soomi karo birito maalin sabti bay ku soo aado dhahaya rabbi ha ka baqeen subhanahu wa ta'ala nusuustan ha jamciyeen oo ha fahmeen soon la sunneeyo mustahab oo umadu loo jeedayna inay joojiyay isku dayin hada wa billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh